السلام عليكم صحابتي دا soo dhawaada maanta waxaan doonayaa inaan bar wax loo yaqaan the conducting system of the heart. Conducting system of the heart waxay ka hadlaysaa neerbaha wadnaha neerba ayuu leeyahay. Wadnahan waxa la yiraahdaa waa myogenic oo macnaha nervous stimulation kiisa ama dhaqdhaqaaqa ama contraction wadnaha kama soo bilowdo meel kale ee wuxuu ka soo bilowdaa wadnaha gudihiisa. Sidee ku dhici kartaa in wadnaha gudihiisa uu contraction ka soo bilowdo? Wadnaha wuxuu leeyahay neerba u gaar ah. maskaxdu way maamushaa laakiin wuxuu leeyahay neerba u gaar ah oo loo yaqaan sinoatrial node. Tusaale halkan waxa la yiraahdaa neerba ayaa ka soo bilowda waxayna ku yaalaan meesha iska galaan the superior vena cava right atrium the junction meesha iska galaan halkan sinoatrial node neerba la yiraahdo ayaa ku yaala kadib waxa weeyaan fariinta halkan bay ka soo baxdaa. This is the primary pacemaker the primary kan ugu horeeyo waaye kadibna fariinta waa la faafiyaa oo waxa la keenaa halkan oo loo yaqaan atrioventricular node ama AV node. Way waxay hakisaa fariinta ay hakisaa. Sababta ay fariinta u hakineysana waa maxay? The AV node one of shaqadeeda waxa weeyaan if the sinoatrial node fails haddii kan ay wax ka qaldamaan kan baa shaqeynaya atrioventricular node ayaa shaqeynaya fariinta ay hakinaysaa sababtoo ah waxa la rabaa inuu kan buuxsamo right ventricle inay buuxsanto. The right ventricle markay buuxsanto halka waa la sii deynayaa the nervous stimulation ama fariinta waa la sii deynayaa kadibna myocardium ay u imaanaysaa dhiigi sidaas lagu pump gareynaya kor baa loo qaadaya. Marka maanta maxaa muhiimadda waxa weeye inaan fahno wadnaha waa myogenic macnaha nervous stimulation wadnaha naftiisa ka soo bilowda. Now wadnaha wuxuu leeyahay wax loo yaqaan circulatory center ama cardiovascular center wax loo yaqaan ba control gareeya maskaxda ku yaal. Cardiovascular center waxay ku taalada medulla oblongata qayb maskaxda kamid ah oo medulla oblongata la yiraahdo. Wuxuuna leeyahay ama control gareeyo wadna garaaciisa ama qofka inuu wadnaha xoog u garaacmo ama inuu tartiib u garaacmo waxyaalaha saameeyo waxa kamid ah stimulation ama nervous stimulation ama autonomic nervous stimulation. Tusaale laba loo kala qaadaa waa parasympathetic iyo sympathetic. Parasympathetic macnaha haddii parasympathetic la stimulate gareeyo wadna garaaca hoos buu dhacaya. Haddii sympathetic la stimulate gareeyo wadna garaaca wuu siyaadaya. Marka stimulation nooca ama control nooca uu jiraa but wadna garaaca qofka waxa weyn always waa myogenic qofka wadna garaaciisa neerbaha ayaa stimulate gareeyo ama dardar geliyo oo wax myogenic ah. So halkaas ay fariinta ka soo bilaabanaysaa halkan bay imaanaysaa waa la hakinayaa and then waxa loo gudbinayaa fiiradaha ayaa gudbiyo waxa loo yaqaan AV bundle kuwan ventricles ay geeyaan they are called the AV bundle. Mid walbana gees buu leeyahay right ventricle bundle keeda ay leedahay and this one has its own bundle and then we have something called the network of Purkinje fibers ama Purkinje fibers wax loo yaqaan. Purkinje fibers murqaha myocardium bay fariintiisa gaarsiiyaan in such a way that the heart contracts ama murqihiina ay contraction sameeyaan ama ay dhaqdhaqaaq sameeyaan.